maanta kula kulmay waddanka Denmark gaar ahaan magaalada Colombo siyaasi Soomaaliyeed oo la yiraahdo Maxamuud Nuur Maxamed Carab oo in badan deganaa Talyaaniga iyadoo ay maanta ka jirto dunida oo dhan looga dabaaldegayo maalinta 1 Luulyo oo ku beegan maalinkii ay Soomaaliya xorriyadda ka qaadatay gumeystihii oo laga joogo haatan muddo ku dhow 50 aad u mahadsan tahay kulankaaga iyo sida qiimaha badan oo ii soo booqatay igu soo booqatay Colombo aad marka hore kaaga mahadcelina soo dhaweyskaaga iyo sida ii qaabishay marka hore barnaamijkii uu naga wadsanayna gidoobiye maanta waa maalin aad u weyn waa maalin taariikhi kule gabi ahaan geyga Soomaalida oo dhan waxaan maleeyaa inaad og tahay hore waad ka dhawaatsay waa 1 Luulyo waxa weeye markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay 56 sano laga joogaa 1960kii markii uu gumeysihii Talyaaniga iyo Ingiriis ka baxay labada gobol ee waqooyi iyo koonfur maxaad ka oran lahayd maanta horta waa ciil waa murugo waa farxad calankan Soomaaliya maanta meeshuu taagan yahay waa murugo waa ciil waa dhibaato meeshii laga soo qaaday oo lagu asteeyay 1 Luulyo waa maalin farxad leh qof waliba oo Soomaali ah oo u baahan in calankaas kor u hayo kan dhala doono inaan ku sinno asigoo sharaf leh ka jiil inaynu ku sinno calanka waayo 100 sano 200 sano kadib asigoo sharaf leh saan u babanayo waa inaan ku sinna ubadka Soomaaliya ma ahan in uu horseedno magac xumo murugo iyo dhibaato iyo dhiig asoo xabaarsan inaan ku sinno ma ahan jiilka anaga nahay ayaa daranana laha waayo jiilkan aniga dawlad Soomaali ma arkin waxaan ku soo koray dagaal burbur qax tahriib intaas ku soo koray jiilka iga dambeeyana inay ku sii jiraan ma doonayaan aniga waxaan doonaa 1 Luulyo maalintii calankaas la suray ka nasiib ka nasaar waxaa midoobay koonfur iyo waqooyi dawladnimadii la dhisay murihii laga gurtay waa aragtaa ilaa iyo hadda raggii ku cuuriyaamay ama gobonnimada oo Soomaaliya dawladii calanka 1 Luulyo ka soo aasmay waad aragtaa maanta dalkeena dadka iyaga ugu liidan waa murugo ciil leh buug anaga taariikh waxaan leenahay hadii dib loo raaca geeska Afrika libaaxiyadii aan nahay calankan dawlado badan oo Afrika ah oo wax u qabtay oo maanta noo arka inaan nahay dadka adduunku aan ugu liidan ma nihin Soomaalida waxay ku maamahdaa doqon libaax duqoobay doqon daayeeray muddo waayo libaaxa markuu duqoobo wuxuu leeyahay socod daayeer laakiin libaax waa wax baa ku aasan laakiin anaga Soomaaliyaan nahay wax baa nagu aasan 1 Luulyo waa maalin qadiyad iyo qiimo iyo sharaf naga mudan dhammaan intii u halgantay waxaan leeyahay janno firdaws inta maalintaas calankaas surtay waxaan leeyahay jannatul firdaws ilaahay igu bashaaray mar waliba socdo wax wanaagsan sameeysan waddanka Denmark qiyaastii waxa lagu qiyaasaa inay degan yihiin Soomaali gaarayso 24,000 oo qof waana waddanka labaad ee ugu badan Soomaalidu ay aad u degaan marka laga reebo waddanka Sweden
balse sannad walba marka ay timaado kowda luulyo laba xuso ama laba weyneeyo taasoo sababtay soomaalida waddankan denmark degan inayan lahayn jaaliyad guud ay ku midaysan yihiin balse ay jiraan jaaliyado ku abtirsada dowlad goboleedyada ka jira gudaha waddanka Soomaaliya waa Faysal Muuse Aadan Faysal Khayr Kalson TV Copenhagen Denmark